carrada laga muujiyay hadaladii meelka dhaca ku ahaa Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee ee uu jeediyay madaxweynaha Faransiiska ayaa cirka isku shiishareystay isbuucan. Qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka muslimiinta ayaa ka mid ahaa malaayiinta qof ee ka falceliyay arrintaas, halka Faransiisku uu wacad ku maray inuusan ka laaban doonin difaaca xurriyadda hadalka. Faransiiska weligeed ma diidi doono mabaadi'deena iyo qiyaamkeena, gaar ahaan xurriyadda hadalka iyo xurriyadda daabacaadda, taasoo la micno ah in qof walba waxa uu doono uu samayn karo, diinta uu doonana ku aflagaadeyn karo. Sheekadan ayaa timid kadib markii uu macallin soo hordhigay ardaydiisa sawir uu ku tilmaamay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee, taasoo sababtay in macallinkaasi naftiisa uu ku waayo, waxaana dilay wiil yar oo u dhashay waddanka Ruushka. Sawir gacmeedyadii u horseeday geerida macallinka ayaa ahaa isla sawirada udub dhexaad u ahaa weerarkii 2015 ee lagu laayay shaqaalaha wargeyska Charlie Hebdo, kaasoo ahaa kii ugu horeeyay ee sawiradaani soo daabaca. Taageero uu u muujiyay madaxweynaha Faransiiska in la daabici karo sawiradaasi ayaa qaar ka mid ah hogaamiyaasha dalalka muslimiinta ka falceliyay hadalkaas, waxaana ka mid ah hogaamiyaha Turkiga ee Rajab Tayyip Erdogan, wuxuuna su'aal geliyay xaaladda maskaxeed ee madaxweynaha Faransiiska isagoona sheegay inuu u baahan yahay in maskaxdiisa la baaro. Isagoo si adag uga jawaabaya hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha Faransiiska ayuu wuxuu Erdogan ku baaqay in dhammaan wadamada muslimiinta ay xayiraad ku soo rogaan badeecooyinka Faransiiska. Madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax al-Siisi ayaa cadeeyay mowqifkiisa ku aadan mowduucaasi isagoona sheegay in hadal lagu weeraro nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee uusan wax qiil ah lahayn. Xurriyadda hadalka way ka bixaysaa meesha markii Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee la caayo, ayuu yiri madaxweynaha al-Siisi isagoo ka jawaabaya sawirada kaartuunka ee uu wargeyska Charlie Hebdo ku aflagaadiyay nebiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee. Ayuu al-Siisi sheegay in aan loo dulqaadan karin wax dhibaato u geysanaya dareenka dad tiradooda gaarayso 1 bilyan iyo badh. Madaxda dalalka Islaamka ee sida degdeg ah uga falceliyay hadalkii kasoo yeeray madaxweynaha Faransiiska waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Pakistan Imran Khan. Qoraalo isdaba joog ah uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayuu ku qeexay isagoo uga soo horjeeda hadalada ka dhanka ah muslimiinta iyo aflagaadada Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Dhiirigelinta uu madaxweyne Macron siinayo sawirada kaartuunka ee lagu aflagaadeynayo Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee iyo diinta Islaamka isagoo aan waxba ka fahansanin arrintaasi, wuxuu ku weeraray kuna dhibaateeyay dareenka malaayiin muslimiin ah oo ku nool Yurub iyo caalamka intiisa kale, ayuu soo qoray ra'iisul wasaare Khan. Madaxweynaha Iiraan Xasan Ruuxaani ayaa ka mid ahaa hogaamiyaashii sida kulal uga jawaabay hadalkii carada abuuray ee kasoo yeeray madaxweynaha Faransiiska. Reer galbeedku waa inay fahmaan nebi wanaagsan ee muslimiinta inay jecel yihiin dhammaan dadka muslimka ah iyo weliba dadka xurnimada jecel ee caalamka ku nool, ayuu yiri madaxweynaha Iiraan. In la caayo nebiga waxay la mid tahay in la caayo dhammaan muslimiinta. Haddii nebiga la caayo waxaa la caayay dhammaan nebiyada, qiimaha bini'aadamka iyo shuruucda oo dhan, ayuu sii raaciyay hadalkiisa. Dalka Faransiiska waxaa Khamiistii ka dhacay weeraro loo adeegsaday toorey oo lagu dilay 3 ruux. Nin u dhashay dalka Tunisia oo sitay toorey kuna dhawaaqaya Allahu Akbar ayaa haweeney ku gowracay, 2 kalena ku dilay gudaha kaniisad ku taala magaalada Nice ee dalka Faransiiska. Sidoo kale waxaa weerar lagu qaaday qunsuliyadda uu Faransiisku ku leeyahay magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Carabiya. Iyadoo waxaasi oo dhan ay dhacayaan ayuu haddana mar kale wargeyskii wuxuu soo daabacay sawir lagu aflagaadeynayo madaxweynaha Turkiga Rajab Tayyip Erdogan. Sawirkaasi oo muujinaya madaxweynaha Turkiga oo fadhiya qamrina haysta weliba haweeney xijaaban hortiisa socota marada xagga dambe ka feedaya. Madaxweynaha Faransiiska oo u muuqday mid soo dubcay mar uu wareysi siinayay telefishinka Al Jazeera wuxuu sheegay inuu rumaysnaa in falcino adag kaga imaanayaan ummadda muslimka ah sababtoo ah wuxuu yiri dadku waxay si qaldan u fahmeen hadalkayga oo waxay u malaynayaan inaan aniga taageersanahay kaartuunada ama xitaa in dowladda Faransiiskuba ay samaysay sawirada. Waan fahamsanahay dareenka ay muujiyeen waana ixtiraamayaa muslimiinta. Maanta adduunka waxaa jira dad diinta Islaamka qaloocinaya iyagoo adeegsanaya magaca inay difaacayaan diintooda, kuwaasi oo dadka dilaya amaba gowracaya. Maanta waxaa jira rabshado ay wadaan qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha xagjirka ah iyo shakhsiyaadka wata magaca Islaamka. Wuxuu intaasi ku daray in qaadacaada alaabada Faransiiska ah ee la soo jeediyay ay tahay mid aan u qalmin oo aan la aqbali karin. Weeraradii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka Faransiiska
Faransiiska. 20kii bishii Oktoobar, macallin taariikhda dhiga oo wax ka barayay iskuul ku yaala duleedka magaalada Paris ayaa qoorta laga jaray kadib markuu ardaydiisa tusiyay sawir uu lagu tilmaamay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Sebtembar 2020, 2 qof ayaa weerar toori lagu dhaawacay kadib markii weerar lagu qaaday xafiiskii hore ee Charlie Hebdo. Wargeyskaasi oo soo saaray sawiradii lagu aflagaadeeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Oktoobar 2019, weerar ka dhacay xarunta dhexe ee booliska magaalada Paris ayaa lagu dilay 4 qof oo 3 ka mid ahaayeen askar booliis ah. Julaay 2016, 2 qof ayaa weerar ku qaaday kaniisad ku teelay waqooyiga Faransiiska waxayna ku dhaawacmeen 2 qof oo ka mid yahay nin baadari ah. Isla bisha Julaay 2016, nin hubeysan oo gaari weyn oo xamuul ah wada ayaa jiiray rasaasna ku furay dad dabaaldeg ku howlanaa wuxuuna halkaasi ku dilay 86 qof iyadoo weerarkaasi uu sheegtay ururka IS. November 2015, nin hubeysan oo isa soo miidaamiyay ayaa weerar qorsheysan ka fuliyay goob ay dadka isugu yimaadaan oo ay ka koobneyd maqaayado, baarar, garoon ciyaaraha waxaana halkaasi ku dhintay 130 qof halka ay boqolaal kalena ku dhaawacmeen. January 2015, 2 qof oo hubeysan oo ka tirsan ururka IS ayaa weeraray xafiiska Charlie Hebdo ee sawir gacmeed ka sameeyay Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ku yeelay magaalada Paris waxayna dileen 12 qof oo ka tirsanaa wargeyskaas. Intaas ayaan kusoo koobayaa carada laga muujiyay hadaladii meel ka dhaca ku ahaa Nabi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaatee. Wararkan waxaan kasoo xigtay BBC, NBC iyo Fox News anigoo adeegsanaya barta wax laga baaro ee Google. Inta aadan ka bixin nabiga ku salin naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ha ahaato.